الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لبدا قلة xildhibaanada iyo senataradaba golayaasha galmudug dhammaan madaxda iyo martida sharafta badan ee meesha joogta centerka nacazuumay oo noo qaban qaabiyay maxaan ku yiraahdaa barnaamijkan aadka u qiimaha badan sidaas oo kale bahda saxaafadda dhammaan waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u malaynaa mawduucan mawduuc aad muhiim ah inuu yahay inay habooneedba mar hore inaan ku baraarugno oo laga hadlo laakiin nasiib wanaag in lagu baraarugay oo hadda maanta aan dul taagannahay sababtuna waxa waaye marka ugu horeysa horta waa markii ugu horeysay oo la yiraahdo dhalinyarada ayaa ugu badan bulshada Soomaaliyeed oo 73% ama ka badan bagaaraysa sababta labaadna waa dadka wax bedeli kara oo haddii ayaga si sax loo jiheeyo wacyigooda kor loo qaado wax bedeli kara sababtuna waxa waaye oo kale waqtiga ay hayaan iyo energy-ga iyo firfircoonida iyo niyad wanaagga iyo khatar qaadashada waxa iska la dhalinyarada taariikhda marka laga hadlo markaan ka soo bilaawno nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu wax ku bedelay dhalinyaro ahayn marka la fiiriyo Soomaaliya qarannimadana SOL waxay ahayn dhalinyaro u istaagtay dalkan inay gumaysiga ka qaadaan dawladnimo gaarsiiyaan wayna ku guuleysteen labada group waa ku guuleysteen dawladnimada maanta aan harsanayno 13 kaliya la yaqaana laakiin waa ka badnaayeen guushaas waxa keenay dad dhalinyaro ah waqtigooda bixiyay abaabulay bulshada Soomaaliyeed ka dhiidhiyay gumaysiga mideeyay dawladnimo keenay na soo gaarsiiyay diinta xaniifka ah aan haysano sida aad wada ogtihiin dhalinyaro keentay oo ku soo dadaashay idan dhalinyaradu waa cunsur isbedelka muhiim ah laakiin maxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin hoggaan suuban oo keena wacyigooda kor in loo qaado in laga gudbiyo waxyaabaha yaryarka oo qoqobnaanta ah sida hadda bulshada Soomaalida oo kale deegaamaysiga qabyaaladda waxyaabaha hoose in laga gudbiyo oo la tusiyo wax weyn oo ah qarannimo inay ka fikiraan Soomaalinimo inay ka fikiraan dawlad inay ka fikiraan sharafka dadka Soomaaliyeed inuu kor soo aado waxyaabaha marka muhiimka ah waxa kamid ah aqoonta maxaa yeelay qofku wax ma bedeli karo ilaa inuu aqoon ku filan oo u helo waxa uu ka shaqeynayo aqoontuna sidaan wada ognahay waa waxa wax bedela nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisii waxay wax ku bedelayeen aqoon ilaahiya oo ilaahay uu ku soo dajiyay nabi maxamed ayay ahayd diintiina hadda waa haysanaa kitaabkii quraanka waa haysanaa axaadiistii waa haysanaa culumtii laga soo saaray oo dhan waa haysanaa intaas waxaa sii dheer culumta maadiga ah oo bani aadamku intuu dadaal bixiyay uu wax ku bedelay marka in la helo jiil labadii aqoon leh oo waxa ay qabanayaan ilaahay uga cabsanaya oo xoolaha ummadda aan qaadanaynin oo cirdigooda aan taabanaynin oo qabyaaladda ka fog oo wacyiga mas'uuliyadda ay mataqaanaa u baahan tahay leh wacyigeeda leh ayaa loo baahan yahay ummaduhu marka ay dhibtoodaan waxaa ka soo baxa dad duruufaha adag ay soo diyaariyeen sida hadda dhalinyarada Soomaalida ay u dadaalayaan oo kale maanta waxaa muuqata fursad aad u weyn 35 sano oo la soo dhaafay dhalinyarada Soomaalida waxay ku dhex jireen dhibaato waxay ku dhex jireen shido waxay ku dhex jireen qax ay ku dhex jireen maanta marka waxay og yihiin nabaddu qiimiga ay leedahay waxay og yihiin dawladnimadu qiimiga ay leedahay waxay og yihiin midnimadu qiimiga ay leedahay laakiin maxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dadka waaweyn oo ku hogaamiya dariiqa wanaagsan oo example u noqda dadkaasi waa dadka loo dhiibay maamulkaas ama maamul goboleed ha noqdo ama maamul ka sareeya ha noqdo labadaba mas'uuliyad waxay ka saaran tahay dhalinyarada inay waqti ku bixiyaan waxbaridooda
wacyigooda kor u qaadidiisa iyo in fursado shaqo la siiyo oo ay baraktis gareeyaan aqoontooda iyo khibradooda. waxaad ogtihiin qofka dhalinyarada waqtiga uu bixi karo qof waayeela ma bixi karo. waxa uu qaban karo qofka dhalinyarada ah qof weyn ma qaban karo. wuxuu u baahan yahay kaliya in loo diyaariyo mas'uuliyaddaas. mas'uuliyadda intaan la qabanin haddii qofka wax loo dhiibo waxaa ka yimaada khaladaad fara badan. marka qofka waa in lagu dhex diyaariyaa sistamka dowladnimada. sistamka dowladnimada marka lagu diyaariyo waxau noqonayaa qof faham u leh waxa uu qabanayo, mas'uuliyaddii qaadi kara, loo carbiye ayuu noqonayaa. waana sida ummaduhu ay ku hormaraan. marka maadaama aan ku jirno marxalad maxaan ku idhaahdaa dib isu abaabul ah oo aan rabno qarannimadeennii si dhammaystiran inaan u hanano. maxaa yeelay waa ogtihiin dalka qaybo fara badan waxaa haysta al-shabaab. qaybo fara badan waxaa ka jira kala aragti duwanaan. doctor cabdifatax hadda wuxuu ka hadlayay qayb ka mid a soomaaliya in ay muddo dheer ka shaqaynaysa inay gooni u istaagto. dhinaca kalena dadaal in la wado, laakiin dadaalkaas uusan miro dhalin oo uusan gaarin in lagu guulaysto wixii la rabay. kuwo kale maanta inay jimbadeen oo ay joogaan meel u baahan in la adaras gareeyo mushkiladooda. arrimahaas marka haddii ragga ishaaya kaliya la dhegaysto oo aan laga fikirin danta ummadda Soomaaliyeed oo ku jirta midnimada, waxaa guulaysanaya fikirkii gadaal u socodka ahay ee ahay ummaddu inay weligeed kala qoqobnaato isla markaasna hadaf u noqoto cadowgeeda sida haddaba dhacaysa. marka dadka waaweyn waajib waxaa ku ah inay u gutaan mas'uuliyaddooda sida ugu habboon. nebi ambiyada ka mid a ayaa marka uu dhimanayay ayaa wuxuu wiilashiisii ku yidhi maadaa tacbuduuna min bacdi. maxay yidhaahdeen marka? qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika wa ilaaha ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa. odayaasha marka waxaa laga rabaa diintiina dadka inay ku beeraan, dowladnimadii inay ku beeraan, aqoontii inay ku beeraan, oo marka ay dhimanayaan ay og yihiin su'aalaha muhiimka ah marka la weydiiyo dhalinyarada. war marka aan idinka tago maxaa samaynaysiin marka dhalinyarada la weydiiyo? jawaabtii lagu farxi lahaa, isha ku qabowsa lahayd, qalbigu ku degi lahay, ilaahay lala hortegi lahay in la diyaariyo. taasna ma imaan karto ilaa in dadaal la bixiya maahine. ummaddan islaamnimadeeda dadaa ka soo shaqeeyey, waqti ku soo bixiyey, dowladnimadeeda dadaa ka soo shaqeeyey, waqti ku soo bixiyey. dadka hadda jooga ma fahamsan yihiin? madaxdeennu ma fahamsantaa mase waxay ku mashquulsan yihiin wax kale? su-aashaas adinkaa laydinku soo celinaya. su-aasha jawaabteeduna waa fududahayoo qofka ficilkiisa la fiirinayaaye hadalkiisa lama fiirinayo. marka in aan marka annagu mas-uuliyaddeena qaadanno oo jiilkan maanta jooga aan u diyaarinno mas-uuliyadda mustaqbalka oo ay la jaan qaadaan marxaladda cusub oo mas-uuliyaddeeda ay qaataan waajibka annagana saaran waaye. waajibka dhalinyarada saaranna waxay maadaama ilaahay caqli siiyey, aqoon siiyey, khibradda siiyey, waxay kala yaqaaniin xumaanta iyo samaanta. isagama darsana inay wanaagga raacaan oo xumaanta ka tagaan. maalan dhalinyarada hadda joogta waxaa loo qaybi karaa ilaa 3 qaybood iyo ka badanba. kuwa duurka ku jira oo dadka dilaya, oo diinta ilaahay ku baan sheegtay, oo nabadda u diiday ummadda, oo dowladnimada u diiday waa qayb. kuwa jidadka taagan oo dadka dhibaaya oo ayagana magacay doonaan qoragaa ku haystaane ayagana ficilada xun samaynayana waa qaybta kale. qaybta kale waa qaybta halkan fadhida ama qayb lamida. qaybta marka maanta la rabo inay istaagaan oo dalkan ay u istaagaan oo ay badbaadiyaan waa qaybtan. qaybta la rabo labada qaybood oo kale inay gacmaha ka qabtaan oo ay qoryaha ka dhigaan oo dowladnimada ku soo celiyaan oo nabadda ay ku soo celiyaan waa kuwan. haddii marka aan iska fadhino oo aan iska sheekaysanno oo inshaha iska cabno oo hamigaas aanan lahayn guushaas ma gaali karo. guushuna sideedaba waxay ku timaadaa isku day. waxay ku timaadaa dad hami dheer iyo aragti leh. waa ogtihiin dalkan hadda meesha laga soo celiyey, meesha laga keenay, isku dayadii basiidka ahaa ee la sameeyey iyo meesha ay wax soo gaarsiiyeen. waxaan u baahannahay dib inaan isu abaabulno, dib isu waraysanno,
ugu diyaar galowno marxaladda cusub si dhammaystiran. dadku hadda intii waa ka aqoon badan yihiin, maskaxdu waa degan tahay, nabaddu intii waa ka fiican tahay, dadku intii wacyigoodu waa ka fiican yihiin, laakiin ma abaabulna, iskama warhaayaan, islama xiriiraan, mid la arka waa meel yar oo ku xiran yahay. maanta tiknoolajiyada la haysto, codkaaga iyo fariintaada waxaad gaarsiin kartaa 5 qaaradood. soomaalida maanta dibadda joogta waa ka muuqdaan, aqoon ay uga muuqdaan, waxay uga muuqdaan ganacsi, waxay uga muuqdaan si walba. haddii la isku xiro marka kuwa dibadda jooga oo dadnimada leh, oo kartida leh, oo aragtida leh, oo wanaagdoonka ah, iyo kuwa gudaha jooga, isbeddel degdega ayaa dhici kara. in la kaalmeeyo marka ugu horreysa kuwa dhibaataysan oo aqoonta u baahan. haddaa adiga fursad waxbarasho heshay, in mise adiga kula mid ahaa aqoon la'aan la fadhiya derbiyada oo waaye fursadda wax ku barto. ma isweydiisa qofkan maxaa keenay aqoon la'aanta inay hesho oo ay fariisiso meel aan munaasabkiis ahayn. waa mas-uuliyad annagoo dhanna saaran oo u baahan inaan ka jawaabno. annaga hadda jiilkii idinka weynaayaanna, dowladdii aan uu korduntay, intii aan keeni karna halkaanay noqoto. wixii nugu harayna diyaaraanalna, mustaqbalkiina iyo mustaqbalka carruurtiina ayaa laydinka rabaa inaad ka fikirtiin. ka fikirin shaati qurxan inaad xirato, ka fikirin baabuur qurxan inaad ka xirato, ka fikirin waxaad ka fikirtaa jiilka soo socda mustaqbalkiisa sidii loo badbaadi lahaa. sida lagu badbaadi karaa waa midnimo keliya. laguma badbaadi karo sida hadda wax ku socdaan. qof la arkaba inuu yidhaha maxaa iga galay, hoostayda muhiim ii ah. waa marxalada soo gaara, iyada laftigeeda lama haynin, laakiin waa in laga gudbaa. maxaa yeele bani aadamka markuu safar ku jiro, dadka safri jiraa yaqaane, geedka aadan hargelaynin lama fadhiisto. maxaa yeele haddaa fadhiisato kama kici kartid. marka meesha aan u soconnaa waa midnimo, meesha aan u soconnaa waa dowladnimo. dowladnimo macno leh oo dowladnimadii lagu yaqiin dadka Soomaaliyeed, oo haybaddii iyo karaamadii soo celinaysa, oo shafaafiyo iyo isla xisaabtan iyo ku dhisan maxay tahay hantida ummadda inay badbaado ayaa la iska rabaa. waxyaabahan yaryarkaa oo hadda taagan waa cawaarid. shabaabku wuxuu caarido u yahay dowladnimo la'aanta. baagamuudadu waxay caarid u tahay dowladnimo la'aanta. wiilka qoraga haysto dadka dhibaaya wuxuu caarid u yahay dowladnimo la'aanta. marka inaan dowladnimada xoojino oon awooddoona isugu geyno, taasaa loo baahan yahay. taas cidda la rabo in loo diyaariyo oo la dhexgeliyo waa dhallinyarada. ciidanka haddaa fiiriso, odayaashu waa ku yar yihiin. dadka xafiisyada jooga waxaa ku badan dhallinyarada. meel walba cidda shaqaynaysaa waa dhallinyarada. laakiin dhallinyaradaasi wacyigoodii diyaar ma yahay? ma fahamsan yihin waxay ka shaqaynayaan? ma fahamsan yihin inay ka shaqaynayaan mustaqbalkooda? mase waxay ka shaqaynayaan, mase waxay u malaynayaan inay qof u shaqaynayaan? ma fahamsan yihin inay u shaqaynayaan mustaqbalka carruurtooda? mase waxay u fahamsan yihin qof inay u shaqaynayaan? waxaa la rabaa in annagoo dhan aan ka fikirno horta magaceenna iyo magaca ummaddeenna, iyo inaan ka fikirno mustaqbalkeenna iyo mustaqbalka carruurteenna. markaasaa waxaan ka tegi karnaa dhaxal la yaqaano, dowladnimo la yaqaano, oo meeshay u socoto la yaqaano. adduunka annaga nala midka ah, dowladihii burbura waa soo kabteen. dowladihii xoogaa annaga hadda naga dambeeyey waa naga hormareen. maalin walbana Soomaali markaan nahay waxaan dhahnaa Soomaalidu waa fiican tahay, kanay ku fiican tahay, kanay ku fiican tahay. fiicnaanta haddii la fiirshay, qof aan u fiicannahay, qabiil aan u fiicannahay, laakiin Soomaalinimada kuma fiicnin. marka waxaan u baahannahay meesha wax ku dhammaanayaanna waa Soomaalinimada. dadkii siyaad bare la shaqay jiray, dowladnimadu inay fiicantaan rabaa inaan idiin sheego. markii qarankii burburay ee dhulka la wada fadhiistay, in badan oo ka mid wax waa qabo waayeen. waxay ahaayeen dad madaxa oo laga haybaysto oo lala yaabo xigmadooda. markii dowladnimadu duntay, xigmadii waa ka tagtay. waxa lagu fiican yahay dowladnimada waa. waxa lagu fiican yahay oo macnaha lagu leeyahay waa dowladnimada. marka waxaan u baahannahay haddaan rabno inaan fiicnaano, waxaan ku fiicnaanayna waa halkaas. aqoontii in la tifatiro oo la hagaajiyo oo ay noqoto aqoon su-aasha aakhirana ka jawaabaysa, su-aasha adduunyana ka jawaabaysa. oo wasaaradda waxbarashadu intay u fadhiisato ay tiraahdo maxaa bedeli kara bulshadan hadda aan joogno, maxaa wax ku soo kordhinaya. madaxweynayaasha Mareykanka ka mid ah, Ronald Reagan uu ahaa u malaynaa, ayaa waxaa la sheegay
markii uu yimiday wuxuu isugu yeeray dadkii aqoonta lahaa waxbarashada Mareykanka waa liidat wuxuu yiri war maxaan sameynaa Ronald Reagan waxa lagu tiri jiray dadka aan aad wax u baran laakiin marka bani aadamka uu isticmaalo aqliga saxda ah oo dadka ku jira wuxuu bedeli karaa waxay yiraahdeen maadooyinka ardadu ay qaataan tirada ka bateen taariikha ku jirta juqraafiya ku jirta balaayo dhana ku jirta waxaas ma qaadi karaan waxaan rabnaa 5 maado oo kooban dadka in la baro ayaga soo jeediyay tiyo qaat maxaa kamid ahay luqadooda horta koow luqada Ingiriiska xisaabta iyo sayniska intaas uu soo reeba inta kale waxa la yiri waa hal lagu dhex daro laakiin intaana muhiima maxaa soo baxay jiil aqoon laha soo baxay wasaaradaheena ama wasaaraddeena waxbarashada hal maalin ma noo qiimayso waxbarashada dalka ka jirta maxaas ugu muhiimsan maxay ardaydaynu yaqaaniin oo si fiican u yaqaaniin ma luqada yaqaaniin waa ma af Soomaaliya ma af Ingiriisha ma Carabiya maxay yaqaaniin soo in la xadida ma aha leeyahay ardayga aan ku baasin maadadaas waa haray xisaabta math ardayga aan ku baasin waa haray sayniska ardayga aan ku baasin waa haray maxaa ku imaanaya marka saddexdaas maada arday ka dhisan ma hari karo laakiin hadaa ku wareeriso juqraafi iyo taariikh iyo alaab kale ardayga waa ku wareeraya meesha marka waxaan rabnaa diyaarinta koobaad oo ardayga la diyaarinayaba in lagu diyaariyo aqoon kaligeed wax ma tartee aqoon wacyi laha loo baahan yahay meeqa PhD wadata oo aadan xoolo raacsanaynin oo aadan wax u dhiibanaynin maxaa ila aqli ma jiro weligeedna saas ah marka aqoontu waxay wax bedeshaa marka wacyi la socdo aqoon aan wacyi lahayn waxa ma tarto bilcagsi waa naqsi waa culays waa dhibaato meeqa aqoontoodii ku dhibaataysay dalka meeqa aqoontoodii ku dhibaataysay dadka dib u laabo fiiri dadka aqoonta leh ee ama tuugaystay dadka xaday ama ku dilay ama ku dhibaateeyay dib ugu laabo waa ka dhibaato badan yihiin kuwa kale qof gaar ah uma wada raali ahaada maadadaas aniga waxaan ku soo qaatay jaamacadda waxay ka mid tahay falsafa islaamiya yani aqoonta aan wacyiga lahayn oo aan wax dhowreynin oo wax baabi'inaysa dhibaatada ay geysanayso inta ay la egta yani qof jaahila inuu ku dhibaateeyo iyo qof caalima inuu ku dhibaateeyo isku dhib ma yihiin ma aha marka aqoontu waxa la rabaa wacyi inuu la socdo in hadaf wanaagsan oo la socdo alla ka cabsi inuu la socdo ummad adeegid inay la socoto oo qofka uu aaminsan yahay aqoontiisa inuu u adeego ummadda haddaan taas la helin waxa dhibaato ay kama imaanayaan marka daa misaal iska soo qaadan midka la wada yaqaan oo cidna ku leexanaynin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam marka ilaahay soo saaray yuhuudna waa joogeen nasaarana waa joogeen aqoonna waxay u lahaayeen nabi maxamed in la soo saari doono ma raaceen mas waa diideen aqoontooda kuma hogaamin intooda badan inay nabi maxamed raacaan waa garad sooma waxay ku hogaamisay inay diidaan oo gaalnimada ayagu ay difaacaan waa misaal markii burburku uu dhacay janannadii iyo akhyaartii waaweyneed ee dagaalada sokeeye ka qayb qaadanayeen aqoonta waxaa loo soo baray qaran ahayd qabiil looma soo barin marka way ka dhib badnaayeen nin jaahila oo hogaamiye kooxeeda oo aan shaqadaas in adeerow kaliya ku shaqeynaa waa ka dhib badan yahay nin intoo fadhiisto oo qorshe samaysta ciidan diyaarsado hub isku dheelitirta qolo kale ku duuli kara dhibaatadiisu waa ka xanuun badanta soo ma marka aqoontu waa inay leedahay hadaf iyo ujeedo oo wanaagsan inay leedahay loo baahan yahay marka dhalinyaro maalin walba jiilay leedahay jiilkii maanta waa adinka ilaaha idinku soo aadiyey marxaladan ilaaha idinku soo aadiyey hadda waxaa la joogaa xilli laga hadli karo maxaa waxna taraya xilliga la soo dhaafay lagama hadli karin doodaanu ma furayn marka hadda maanta doodiyaa furan waa ilaahay maadiis waa fursad waxaa la rabaa in laga faa'iideysto cumriga bani aadamkuna waa kooban yahay maanta haddaa 20 sano jirto 20 sano kale haddaad gaartid wax badanaa kaa dhinmay adduunku saama ahaanayo marka 20 sano kugu soo socota qarankaaga ku maalgasho caqligaaga iyo aqoontaada taasaana wax bedelaysa marka amni caama la helo oo cadaalad caama la helo ayaa cid walba meeshay rabto aadi karta laakiin inta
qora lagula daba taagan yahay ama jid la xiraayo ama maxaan ku idhaahdaa la baqayo geesaha la fiirinayo amniga caamka waxaa ka dhiman horumaraa la sameeyey meelaa la soo gaaray laakiin halkan ma aha meeshaan u soconay waxa hadda intaan lagu soo gaarana waa xoogga dhalinyarada dadka naftooda huray oo jidka taagan oo amniga sugaaya waa dhalinyaro marka waxaan rabnaa dhalinyaradii marka fikirkii inay ku darsadaan hogaankii inay u diyaar garoobaan wasaaradaha ay dhex galaan hay-adaha ay dhex galaan cilmi baarista aqoontooda kor u soo qaadaan oo qiyaado isu diyaariyaan waxaan u malaynayaa haddii su'aalaha waqtigooda ma raba inaan ka qaato halkaas aan ku istaagaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu